جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الله. رسالة روحي تهي عربي الوسط قري معنى دعوين هل يجوز للرجل أن يرضع امرأته وأن يدخل لسانه في عضوها وكذلك للمرأة أن تمس قضيب زوجها؟ أفيد ما أفادكم الله. أنا أتنفس روحا ويا نينك ما أبنان تهي إنه حاس كيسا ناسيد النوغر ama carabkiisa xubinka taranka xaaskiisa uu galiyo sidoo kale haweeneyda inay xubinka taranka ee zawjkeeda ay mudmudsato arrimahaas sheekhan Allah rahmo jazakumullahu khayran. waxaa laga yaabaa dad badan oo idinka mid ah su'aasha inaad ka yaqsateen inaad ka yaqsanaysaan oo la yaabantihiin balayaab bal qaar idinka mid ah waxa laga yaabaa inaad leedihiin war waxa masaajidka loo keenayaa waxaas maxaa sheekha loo weydiin laakiin in badan oo mujtamaceena kamid ah baa masaa'ishan sameeya oo ay haysataa khaasatan dadka xogaa iskuulada dhigtay yara ilbaxay ilbaxnimada iyo tiknoolajiyada iyo waxaan adduunyadan la dhaxgalay tiknoolajiyadu ma keenin laakiin dhaxgalkan adduunyada la dhaxgalay baa waxa soo kordhay dhaqamo fara badan oo laga keenay wadamo kale su'aalayin marka war wixii waa la arkay oo dadkii baa lagu arkay telefishinkii baa laga arkay oo dad baa lagu arkay oo gaaladii baa lagu arkay oo joornaaladii baa qoraya oo dadkii mutaqafiinta wax bartay baa akhrinaya war sheekh maxaa diinta ogoshay maxaysan ogolayn hadii la yiri soo xaq ila caday u baahan ma ya wax walba shariicadu waa inay qeexdo waa xaraan waa xalaal taa haddaan kaga gudbo xogaa dhibsiga aad su'aasha dhibsateen inta haddaan kaga gudbo jawaabteedu wax waaye xubinka taranka ama ka dumarka ha ahaado ama ka ragga ha ahaado afka looma dhaweyn karo leesh لأنه وحوي ومحل القدر مش هو ميل وسخ مش هو ميل وسخ وماشي نجاساتكو كسو بحيين وميل انت بدن تشير مثله ميل نوعا سو كلتا افكا او مدخل كي شركه انتي سكليه علوشي iyo wax uga galayeen in la aado maya wax kale iska dhaafay xubinku markuu ka jahayo waxa la yiri gacanta midigta ku qabanina afla aad iska dhaafay gacanta midigta ku qaban mas'aladaasi marka mas'ala sharcan banaan ma aha waana nooc adab darro iyo akhlaaq xumo ah waa nooc mucaasharo khaldan oo shariicada khilaafsan ah looguma talagelin Allah tabaaraka wa ta'ala xubnaha ayagu isugu talagalay afka xubnihi meesha loogu talagalay ma aha qodobka markaan inta kaga gudbo mas'alada xigta ee raacsani waxay ahayd ninka xaaskiisa naaskeeda taa iyada ah lil istimtaac iyo muxuu ahaayay dib male taabashada iyo afgelinta iyo muxuu ahaayay salsalaaxida waa nooc istimtaaca kamida wax dhibana male culimadu waxay ka doodaan kutubta fiqiga qortay culimadu waxay ka doodaan hadduu caana ka yimaadaan oo uu caanihii nuugo liqo ma ka furantay mise kama furmin ma ka furmaysaa mise kama furmayso على الراجح كما فرميس لأن عانوه وحي ساميان ilmuhu intuu yar yahay oo naaska nuugayo oo cuntabaranin bacaanaha uu nuugay ay saameeyaan laakiin nin weyn oo garle caanuhu ma saameeyaan xurmana kama dhalato
allahuma fi xaala khaasa oo xaaladii muxuu ahaaye salim mawla xudayfa fi saxiix albukhaari xadiidkii xaalo noocaasoo kaleo xaaja ay timaado oo suhayla nebigu ardiciihi taxrumi calayhi xaalad khaasa way taas amaa asal ahaan mas'aladu waa saasoo caanuhuna wax saamayna ku yeelan maayaan kana furi maayaan dalaaq maxaan ujeedaa xadhiggiina jabin maayaan saas daraaddeed waa istimtaac iska bannaan haddiise ruuxu uu u baahdo khuruujan min alkhilaaf si uu uga fogaado khilaafkaba caanaha inuusan liqin ayaa habboon maadaama khilaaf meeshaa ku jiro caanaha liqitaankooda inuu ka fogaado ama inta kale sharcan wax diidahaya ma jiro waa masale istimtaaca ka mid a shareecadu ay ogolaatay wabillahi tawfiiq bismillahi raxmaani raxiim su-aasha labaad oo waaga cusubna kugu soo hagaajiyey gabar la yidhaahdo farxiyo xasan oo meeshay joogta aan loo soo sheegin ayaa iyaduna waxay tidhi xag ku saabsan arrimaha dhaqanka qoyska oo hooso ayayna weydiisay taasoo ay ku tidhi ninkayga markii aanu wada galmoonayno farjigayga ayuu carabka geliyaa oo saas ayuu isagu raaxa ka dhigtaa aniguna waan kahday ee arrintaasu xalaal miyaa oo soonka waxu dhimaysaa iyo noloshayda waxa weeye waxaan ku leenahay farxiyoy adiga ninka horta waxaa weeye naagtu jirkeeda inuu ku raaxaysto waa u bannaan tahay dhammaan waxaa jamaaca loo diidayaa duurka in looga tago naagta ilaahay waa xarimay asagu haddii arrintaas uu jecel yahayo oo markaasi raaxo ay la tahay meeshaas hadduu asagoo carabkiisa uu geliyo waxa weeye wax hadda shareecada ay u dhimaysa ma jirto maxaa yeelay maxalul istimtaaciisii ayaa tahay laakiin hadday maalin ramadaana tahay haddee waad og tahay soonka waa ku jabayaa oo soonka ma bannaano xaaraamna weeye maalin ramadaan hadday tahay hadii la sameeyo laakiin habeenkii hadday taho habeenkii aad isu wada tegaysaan arrintaasu soonkaagana waxu dhihi mayso habeen waaba habeen oo jamaaca naagti loogu tegi karaa midda kaleentood waxay noloshaada kale u dhimaysa ma jirto haddee arrintaasuna waa arrin bannaan marka saas ayaanu taasna ugaga jawaabaynaa wabilahi tawfiiq